habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug la magac baxay barbaarinta ubadka qurxoon oo ay qortay qoraa Safiya Maxamed Faarax Bande. munaasabad siyaarsara loo soo agaasimay oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, abwaano iyo qoraayo, waxaana dhammaantood soo dhaweeyeen buugan oo ay sheegeen inuu yahay muhiim. ugu horreynna waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay qaar ka mid ah qoraayadii iyo mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda, waxaana ka mid ahaa Siciid Maxamuud Gahayr, Amaal Gidin iyo Cali Coomey, waxaana dhammaantood sheegeen in mowduuca uu ka hadlaya buugan uu yahay mid aad u muhiim ah. 25 qaybood ee buugga ka kooban yahay waxa laba arrimood ba ugu muhiimsan. midi waa cilmi baaris ay sameysay Safiya oo mowduucan barbaarinta carruurta ay ku sameyso aqoon ahaan ayaa ka muuqata. talabaad kale waxa weeyaan waxa ka muuqda way aragnimo say hore u sheegeen qorayaashii hore maadaama hooyo 7 carruur la tahay way aragnimadeedii baa ku jirta. marka waxyaabo ugu qiimaha badan marka la eegayo sheega waan aqoonna ka muuqata way aragnimo ay ka muuqata. marka labadii arrimood ee loo baahnaa buugga way ka muuqdaan. hal fariin ban idinsiinaya oo ah in aad qoraaga dhiirigelisaan buuggiisa iibsataan. hawl baa gashay buuggan waqti baa galay wax meel laga soo minguuriyay ama koobi aan basti ku yimid ma aha. waxaan ku bogaadinaya qoraaga mowduuca fiican ee ummadda anfacaya ee jihaynta ah ee tilmaamida ah ee ay wax ka qortay. waalidiintana de waxyaabaha loogu duceeyo waxa ka mid ah sida fiican ee ubadkooda ay u koriyaan. waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira. intaasaan ku soo koobayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hal qodob ku jira runtii aan aad ugu bogay oo ah waalidnimada ma wax la bartaa. marka dhammaanteen waxaanu sawaranaa riyooyin qurux badan oo ay ka mid yihiin inuu dhalno ubad dal iyo dadba anfaca, ama in qofku ku riyoodo in ilmihiisu meel sare gaadho. laakiin qaabkii loo mari lahaa ama sidii ilmaha looga dhigi lahaa ilmo najaxa oo qeyrkii wax la qaybsadaa runtii iskuma taxaluujino. waynu guursanaa deedna waxaan ku dhex dhacnaa nolol ah inaan aqoon badan u lahayn. gabadhan buuga qortay 7 ciyaal leeday waxbarasho diyaarsan master ba diyaarinaysa ku saabsan tarbiyadda carruurta iyo dhiirigelinta bini'aadamka waxyaabo noocaas ah. reer beeleedo wada arkaysaa buugaas ay qortay. buuga qoristiisuna sidiisa horta hawl yar maaha. inagana dumarkeenu waxa laga yaabaa qofka waddanka iska jooga marka uu gabadhu carruur yeelato in ay waxay qortay iska daayay hataa carruurta kale haleeli wadaba. run ahaantii halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadnaqayaa Safiya oo aqoonteedii isugu geysay inay ka hadasho mowduuc aad muhiim u ah. waxa weeyaan aasaaskii run ahaantii markaynu eegnana aasaaskii nolosha ah. geestoodana waxaa iyagu halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID, iyo xoghayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga UCID, iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale. waxaana dhammaantood ka marakaceen in buuggan uu yahay buug aad u muhiim ah oo wax badan ka anfici doona waalidiinta maadaama barbaarinta ubadku ay tahay shay aad u muhiim ah. aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. waan u hambaliyeynayaa qoraaga qoraa Safiya. waxaan leeyahay hambaliyo boog wanaagsan baa taabatay. wax waddanku u baahan yahay baa taabatay. hawl aad u muhiim ah baa taabatay. maana qarin buugga gudihiisa laakiinse mar haddii ay haween ubad barbaarisay qortay oo aqoonna u leh sidoo kalena barbaarisay tacabka ay gelisay inay hablaheedu ku dhiiradaan marka horeba wax qorista oo ay hore ugu socdaan oo ay weliba kuwa qoyska iyo reeraha yeeshay ee khibradda ayaa ay ku dhiiradaan oo ay waxyaalaha mufiidka ah ee bulshada u faa'iideynaya qoraan. rag iyo dumarba waa muhiim runtii qoraalka lagu dhiirado. aqoonta aragteen wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigiisa ku yimi mooyaane waxa kale waa khibrad iyo tajaarib la ururiyey. waa tijaabooyin ama tajaarib la ururiyey iyo khibrad la ururiyey oo isku dayo iyo xulul iyo xalal la ururiyey iyo afkaar dad curiyeen oo la ururiyey weeye. khibraddaas ay ka dhalanaysaa khibradda aqooneed
ay haweenkeenu leeyihiin ee ay ku barbaarinayaan runtii waa khibrad ay u tabin karaan jiilal kale waa khibrad ay u tabin karaan dadyow kale ugu dambeyntii waxa iyaduna halkaasi ka hadashay oo khadka internetka ku soo gashay qoraaga buugga Safiya habeennimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Dama lagu soo bandhigay buugga barbaarinta ubad qurxoon oo ay qortay Safo Faarax Maxamed Baandey madasha waxaa ka ahaa qorayaal abwaano mas'uuliin ka socday xisbiyada iyo haldoor kale qoraaga buugga oo dhinaca khadka kaga qayb gashay munaasabada iyadoo dalka dabadiisa ku sugan ayaa waxay u mahad celisay dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugga sidoo kalena waxay faahfaahisay waxyaabaha ku kalifay in ay buuggan qorto qorayaashii ka qayb galay munaasabada mas'uuliyiin ka socday xisbiyada oo ka mid ah hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa iyaguna bogaadiyay dadaalka ay muujisay ay haweenayaan runtii ugu dambeyntii waxa iyaduna halkaasi waxa laba arrimood ba ugu muhiimsan midi waa cilmi baaris ay sameysay Safiyi oo mawduucan barbaarinta carruurta ay ku sameyso aqoon ahaan ayaa ka muuqata talabaad kale waxa weeyaan waxa ka muuqda way aragnimo say hore u sheegeen qorayaashii hore maadaama hooyo 7 carruur la tahay way aragnimadeedii baa ku jirta marka waxa ugu qiimaha badan marka la eegayo sheega waan aqoonna ka muuqata way aragnimo ay ka muuqata marka labadii arrimood ee loo baahnaa buugga way ka muuqdaan hal fariin ban idinsiinayaa oo ah in aad qoraaga dhiirigelisaan buuggiisa iibsataan hawl baa gashay buuggan waqti baa galay wax meel laga soo minguuriyay ama koobi aan basti ku yimid ma aha hal qodob ku jira runtii aan aad ugu bogay oo ah waalidnimada ma wax la bartaa marka dhamaanteen waxaan sawaranaa riyooyin qurux badan oo ay kamid yihiin inuu dhalno ubad dal iyo dad baa anfaca ama in qofku ku riyoodo in ilmihiisu muxuu meel sare gaadho laakiin qaabkii loo mari lahaa ama sidii ilmaha looga dhigi lahaa ilmo najaxa oo qeyrkii wax la qaybsada runtii isma taxaluujino waynu guursanaadeenna waxaan ku dhexdhacnaa nolol ah inaan aqoon badan u lahayn gabadhan buuga qortay 7 ciyaal leeday waxbarashay diyaarsan master ba diyaarinaysa ku saabsan tarbiyadda carruurta iyo dhiirigelinta binaadamka waxyaabo noocaas reer beeleedo wada arkaysa buugaas ay qortay buuga qoristiisuna sidiisa horta hawl yar maaha inagana dumarkeen waxa laga yaabaa qofka wadankiisa ka jooga marka uu gabadhu carruur yeelato in ay waxay qortay iska daay hataa carruurta kale haleeli wadaba bal qof aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waanan u hambaliyeynayaa qoraa Safiya waxaan leeyahay hambaliyo boog wanaagsan baa taabatay wax wadanku u baahan yahay baa taabatay hawl aad u muhiim ah baa taabatay run ahaantii halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadnaqayaa Safiya oo aqoonteedii isugu geysay inay ka hadasho mawduuc aad muhiim u ah waxa weeyaan aasaaskii runaantii markayna eegnana aasaaskii nolosha ah waxaan ku bogaadinaya qoraaga mawduuca fiican ee ummadda anfacaya ee jihaynta ah ee tilmaamida ah ee ay wax ka qortay waalidiintana de waxyaabaha loogu duceeyo waxa ka mid ah sida fiican ee ubadkooda ay u koriyaan waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii صغيرة intaasaan ku soo koobayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نخرن buugga gudihiisa laakiinse mar haddii ay haween ubad barbaarisay qortay oo aqoonna u leh sidoo kalena barbaarisay tacabka ay gelisay inay hablaheedu ku dhiiradaan marka horeba wax qorista oo ay hore ugu socdaan way waliba kuwa qoyska iyo reeraha yeeshay ee khibradda ayaa ay ku dhiiradaan ay waxyaalaha mufiidka ah ee bulshada u faa'iideynaya qoraan rag iyo dumarba waa muhiim runtii qoraalka lagu dhiirado aqoonta aragteen wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigiisa ku yimi mooyaane waxa kale waa khibrad iyo tajaarib la ururiyey waa tijaabooyin ama tajaarib la ururiyey iyo khibrad la ururiyey oo isku dayo iyo xulul oo ay qortay Safo Faarax Maxamed Baandey
madasha waxaa goobjoog ka ahaa qorayaal abwaano mas-uuliyiin ka socday xisbiyada iyo haldoor kale qoraaga buugga oo dhinaca khadka kaga qayb gashay munaasabadda iyadoo dalka dabadiisa ku sugan ayaa waxay u mahad celisay dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugga sidoo kalena waxay faahfaahisay waxyaabaha ku kalifay in ay buuggan qorto qorayaashii ka qayb galay munaasabadda mas-uuliyiin ka socday xisbiyada oo ka mid ahaa hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa iyaguna bogaadiyey dadaalka ay muujisay qoraaga buug 25 qaybood ee buug ka kooban yahay waxa laba arrimood ba ugu muhiimsan midi waa cilmi baaris ay sameysay Safiye oo mawduucan barbaarinta carruurta ay ku sameyso aqoon ahaan ayaa ka muuqata talabaadee kale waxa weeyaan waxa ka muuqda way aragnimo say hore u sheegeen qorayaashii hore maadaama hooyo 7 carruur la tahay way aragnimadeedii baa ku jirta marka waxyaha ugu qiimaha badan marka la eegayo sheega waan aqoonna ka muuqata way aragnimo ay ka muuqata marka labadii arrimood ee loo baahnaa buugga way ka muuqdaan hal fariin ban idin siinayaa oo ah in aad qoraaga dhiirigelisaan buuggiisa iibsataan hawl baa gashay buuggan waqti baa galay wax meel laga soo minguuriyay ama koobi aan basti ku yimid ma aha hal qodob ku jira runtii aan aad ugu bogay oo ah waalidnimada ma wax la bartaa marka dhamaanteen waxaanu sawaranaa riyooyin qurux badan oo ay ka mid yihiin inuu dhalno ubad dal iyo dad baa anfaca ama in qofku ku riyoodo in ilmihiisu muxuu meel sare gaadho laakiin qaabkii loo mari lahaa ama sidii ilmaha looga dhigi lahaa ilmo najaxa oo qeyrkii wax la qaybsadaa runtii iskuma taxaluujino waynu guursanaadeen waxaan ku dhexdhacnaa nolol ah inaan aqoon badan u lahayn gabadhan buuga qortay 7 ciyaal leeday waxbarasho diyaarsan master ba diyaarinaysa ku saabsan tarbiyadda carruurta iyo dhiirigelinta binaadamka waxyaabo noocaas reer beeleedo wada arkaysaa buugaas ay qortay buuga qoristiisuna sidiisa horta hawl yar maaha inagana dumarkeenu waxa laga yaabaa qofka waddanka iska jooga marka uu gabadhu carruur yeelato in ay waxay qortay iska daayay hataa carruurta kale haleeli wadaba bal qof aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waanan u hambaliyeynayaa qoraa Safiya waxaan leeyahay hambaliyo boog wanaagsan baa taabatay wax waddanku u baahan yahay baa taabatay hawl aad u muhiim ah baa taabatay run ahaantii halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadnaqayaa Safiya oo aqoonteedii isugu geysay inay ka hadasho mawduuc aad muhiim u ah waxa weeyaan aasaaskii runaantii markay eegnana aasaaskii nolosha ah waxaan ku bogaadinayaa qoraaga mawduuca fiican ee ummadda anfacaya ee jihaynta ah ee tilmaamida ah ee ay wax ka qortay waalidiintana de waxyaabaha loogu duceeyo waxa ka mid ah sida fiican ee ubadkooda ay u koriyaan waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii صغيرة intaasaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maana qarin buugga gudihiisa laakiinse mar haddii ay haween ubad barbaarisay qortay oo aqoonna u leh sidoo kalena barbaarisay tacabka ay gelisay inay hablaheedu ku dhiiradaan marka horeba wax qorista oo ay hore ugu socdaan oo ay weliba kuwa qoyska iyo reeraha yeeshay ee khibradda ayaa ay ku dhiiradaan ay waxyaalaha mufiidka ah ee bulshada u faa'iideynaya qoraan rag iyo dumarba waa muhiim runtii qoraalka lagu dhiirado aqoonta aragteen wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigiisa ku yimi mooyaane waxa kale waa khibrad iyo tajaarib la ururiyey waa tijaabooyin ama tajaarib la ururiyey iyo khibrad la ururiyey oo isku dayo iyo xulul yani xalal la ururiyey iyo afkaar dad curiyeen oo la ururiyey weeye khibraddaas ay ka dhalanaysaa khibradda aqooneed ee haweenkeenu leeyihiin ee ay ku barbaarinayaan runtii waa khibrad ay u tabin karaan jiilal kale waa khibrad ay u tabin karaan magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Dama lagu soo bandhigay buugga barbaarinta ubad qurxoon oo ay qortay Safa Faarax Maxamed Baandey madasha waxa goobjoog ka ahaa qorayaal abwaano mas'uuliyiin ka socday xisbiyada iyo haldoor kale
qoraaga buugga oo dhinaca khadka kaga qayb gashay munaasabadda iyadoo dalka dabadiisa ku sugan ayaa waxay u mahad celisay dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugga sidoo kalena waxay faahfaahisay waxyaabaha ku kalifay in ay buuggan qorto qorayaashii ka qayb galay munaasabadda mas'uuliyiin ka socday xisbiyada oo ka mid ah hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa iyaguna bogaadiyay dadaalka ay muujisay qoraaga buugga 25 ka qaybood ee buugga ka kooban yahay waxa laba arrimood ba ugu muhiimsan midi waa cilmi baaris ay samaysay Safiyi oo mawduucan barbaarinta carruurta ay ku samayso aqoon ahaan ayaa ka muuqata talabaad kale waxa weeyaan waxa ka muuqda way aragnimo say hore u sheegeen qorayaashii hore maadaama hooyo 7 carruur la tahay way aragnimadeedii baa ku jirta marka waxyaalaha ugu qiimaha badan marka la eegayo sheega waan aqoonna ka muuqata way aragnimo ay ka muuqata marka labadii arrimood ee loo baahnaa buugga way ka muuqdaan hal fariin ban idin siinayaa oo ah in aad qoraaga dhiirigelisaan buuggiisa iibsataan hawl baa gashay buuggan waqti baa galay wax meel laga soo minguuriyay ama koobi aan basti ku yimid ma aha hal qodob oo ku jira runtii aan aad ugu bogay oo ah waalidnimada ma wax la bartaa marka dhamaanteen waxaanu sawaranaa riyooyin qurux badan oo ay ka mid yihiin inuu dhalno ubad dal iyo dad baa anfaca ama in qofku ku riyoodo in ilmihiisu muxuu meel sare gaadho laakiin qaabkii loo mari lahaa ama sidii ilmaha looga dhigi lahaa ilmo najaxa oo qeyrkii wax la qaybsada runtii iskuma taxaluujino waynu guursanaadeen waxaan ku dhexdhacnaa nolol ah inaan aqoon badan u lahayn gabadhan buuga qortay 7 ciyaar leeday waxbarasho diyaarsan master ba diyaarinaysa ku saabsan tarbiyadda carruurta iyo dhiirigelinta binaadamka iyo waxyaabo noocaas reer beeleedo wada arkaysa buugaas ay qortay buuga qorisuusna sidiisa horta hawl yar maaha inagana dumarkeen waxa laga yaabaa qofka wadankiisa ka jooga marka uu gabadhu carruur yeelato in ay waxay qortay iska daayay hatta carruurta kale haleeli wadaba bal qof aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waana u hambaliyeenayaa qoraaga qoraa Safiya waxaan leeyahay hambaliyo boog wanaagsan baa taabatay wax wadanku u baahan yahay baa taabatay hawl aad u muhiim ah baa taabatay run ahaantii halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadnaqayaa Safiya oo aqoonteedii isugu geysay inay ka hadasho mawduuc aad muhiim u ah waxa weeyaan aasaaskii runaantii markayna eegnana aasaaskii nolosha ah waxaan ku bogaadinaya qoraaga mawduuca fiican ee ummadda anfacaya ee jihaynta ah ee tilmaamida ah ee ay wax ka qortay waalidiintana de waxyaabaha loogu duceeyo waxa ka mid ah sida fiican ee ubadkooda ay u koriyaan waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii صغيرة intaasaan ku soo koobayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maana qarin buugga gudihiisa laakiinse mar haddii ay haween ubad barbaarisay qortay oo aqoonna u leh sidoo kalena barbaarisay tacabka ay gelisay inay hablaheedu ku dhiiradaan marka horeba wax qorista oo ay hore ugu socdaan way waliba kuwa qoyska iyo reeraha yeeshay ee khibradda ayaa ay ku dhiiradaan way waxyaalaha mufiidka ah ee bulshada u faa'iideynaya qoraan rag iyo dumarba waa muhiim runtii qoraalka lagu dhiirado aqoonta aragteen wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigiisa ku yimi mooyaane waxa kale waa khibrad iyo tajaarib la ururiyey waa tijaabooyin ama tajaarib la ururiyey iyo khibrad la ururiyey oo isku dayo iyo xulul يعني حلال لا أورورية يا أفكار ضد عوريين ولا أورورية ويا خبرة داسة كدالة ليسا خبرة دا قونات يا هوين كانوا ليهين أي كبر بارنا يا نرنتي وخبرة يوتيوبين كران تشيلال كله وخبرة يوتيوبين كران ضد يو كله habeennimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Dama lagu soo bandhigay buugga barbaarinta ubad qurxoon oo ay qortay